Okay, bismillahirrahmanirrahiim. Halkan waxaan kusoo gudbin doonaa video yar oo ku kooban sidii aynu rajaangaheena installationkiisa u samayn lahayn, sidoo kale sidii aynu u samayn lahayn first project ama projectkeeni inoogu horreeyay aynu abuuri lahayn. Okay, waxaanu ka bilaaban jirnay in desktopkeena aynu tagno kadibna aynu folder samaysano. Marka folderkaygan cusub aan samaysanayo meesha aan ula baxo tusaale ahaan oo kale r Django baan idhi tusaale ahaan oo kale. Okay, r Django baan ula baxay folderkayga cusub. Marka waxaan ugu talagalay qaybta recordedka gudihiisaan geli doonaa. Gudihiisa markaan galo right click haddaan idhaahdo halkan waxaa iga soo bixi karaya terminaaladii igu jira. Haddii ayna halkan kaaga soo bixin halkan aad tegi doontaa wax laga baadho kadibna waxaad odhan terminal. Okay, terminal. Okay, hore waxaan ugu shubtay iskuula ogeyn in aynu ku shubanno kan loo yaqaano Windows terminal. Marka haddaan qoro Windows terminal, Windows terminal haddaynu qorno waa kan inoo soo baxaya. Marka kan aynu isticmaalnaa si aynu u isticmaalno hadda waxaan joogaa C-da computerkayga ama qaybta C-deen joognaa local disk C-da kadibna userkan ku jira. Si aan desktop u tago waxaan idhahdaa cd desktop kadibna desktopkeena iman doonaa. Okay, si aan uga sii tagno folderkeeni aynu samaysanay aynu abuuranay waxaan odhan doonaa cd waxaad nageysaa macnihii folderkan samaysanay aynu ula baxnay r Django. Okay, folderkeeni baan hadda gudihiisa ku jirnaa. Folderkeeni hadda wuu inoo abuuran yahay. Maadaama hadda folderkeeni inoo abuuran yahay waxaanu mari karnaa laba waddaa jira. Labada waddo waxay tahay in marka ugu horeysa aynu abuurano environment waxa loo yaqaano ama virtual environment ama inaynaan inagoon environment abuuran aynu Django install garayn karno. Okay, bal aan ku horeeyo habka hore aan idhaahdo ka standardka la isla yaqaano ee la isticmaalo waxay tahay in virtual environment la samaysto. Si aan u samaysto virtual environment waxaan odhan doonaa pip. Okay, aan idin xasuusiyo internet connection bay igu xidhan. Arkaysaa sooma? Marka maadaama wax kasta soo install garaysanayo waxaan odhan doonaa pip baan odhan doonaa kadibna install baan odhan doonaa. Waxaad igu soo install garaysaa computerka igu shubtaa pip waxaan waa package installer Python leedahay oo Python soo nuuga waxyaabaheeda ama packageyadeeda aynu ka soo heli karno. Pip install baan leeyahay waxaad igu shubtaa wax loo yaqaano virtual env. Okay, virtual env wax kale maaha waa virtual environment ayuu inoo soo dejinaya. Wuu inoo soo dejiyey hadda virtual environment gudaha computerkeena ku jira. Okay, si aynu u arki karno waxaan isticmaali karnaa horta environment cusub aynu abuurano maadaama hadda folderkeenu maran yahay oo aynu arkayno halkan r Djangadeenu empty ay tahay. Halkan aynu ku noqono kadibna aynu idhaahno aan idhaahdo hadda markaa waxaan u baahanahay in la sameeyo virtual environment kadibna waxaan odhan virtual env kadibna environmentkayga magac baan ula bixi doonaa. Tusaale ahaan kale waxaan ula baxay maadaama wax record garaynayo rc baan ula baxay ama renv. Okay, recorded environment buu igu taagan yahay. Inter baan leeyahay kadibna waxaa ii abuurmi doonaa shay loo yaqaano renv. haddaynu gudaha folderkeena soo galnana waa kan sheekh. Okay, haddaynu gudaheena soo galno waa kan waxaa laynoo sameeyey fayl yar oo la yidhaahdo renv. renv-da gudaheeda haddaynu galno waxaa inoogu jira laba fayl oo midna la yidhaahdo lib, laba folder baan u jiraa oo midna lib la yidhaahdo midna la yidhaahdo scripts. Okay, halkan waxyaabo kale iyaguna inoola socda laakiin scriptska haddii gudihiisa sii galno waxaa inoogu jira faylal badan ayaa inoogu jira. Waxaana ku jira fayl loo yaqaano activate. Activate wax kale ma qabto wuxuu inoo sameeyaa scriptskeena ama environmentkeena ayuu inooga dhigaa mid active oo inoo shaqeynaya. Okay, environmentkeena si aynu active uga dhigno waxaan leenahay waxaad noo samaysaa folderkayga magaciisa baynu sheegi doonaayo folderkeena waxaan noo soo baxnay renv kadibna waxaan leenahay slash waxaan u baahannahay inagoo backslash isticmaalna waxaan u baahannahay faylka loo yaqaano scriptska ama folderka loo yaqaano scriptskana sii dhexgeli kadibna waxaad nageysaa faylka loo yaqaano activate. Okay, intan haddaan maro on enter idhaahdo
waxaa la halkaygii hore laga dhigay in la yidhaahdo waxaad ku jirtaa REMV ama recorded environmentigii aad samaysatay ayaad gudihiisa ugu jirtaa. xasuusno markii hore waxaanu ku jirnay PC-geena qaybta C-da ayaynu joognay, laakiin hadda waxaa kasii horeeya in aynu joogno environmentigeenu inuu active yahay. hadda sidan markay tahay shaqadaynu qabanayna waxay tahay inaynu nidhaahno bib waxaan u baahannahay install waxaad noogu shubtaa hadda Django. hadda waxaan leenahay waxaad noo install garaysaa ood noogu shubtaa package-ka loo yaqaano Django. intar haddaynu nidhaahno waxaa laynoogu shubi doonaa gudaha computerkeena Django inoogu soo biiri. bib install Django nidhi waynu sugaynaa oo laynoo collecti garaynayaa internetkeena laga soo helayaa. kadibna marka laynoo dhammaystiro waxaa laynoo odhan doonaa successfully installed. iska sugi doonaa ilaa intuu isagu istabta ka baxayo. successfully installed buu nagu yidhi, macnihii waxay tahay waa lagugu shubay oo wuxuu kugu jiraa gudaha computerkaaga war dhan. mar hadduu sidan dhan tahay si aan u ogaado inuu igu jiro waxaan isticmaali karaa bib waxa la yidhaahdo kadibna freeze baan odhan karaa. macnihii maxaa meeshan igu jira ayaan odhan karaa. halkan waxay nooga soo bixi doontaa inta shay inoogu jirta. Django-aynu ku shubanay, Django-heenii baa inoogu jira, SQL baa la socda iyo faylal kale. waxaynu u soconnoon in gudaha computerkeena kusoo biiro Django. mar haddaynu Django haysano hadda shaqada inoogu xigtaa waxay tahay inaynu samaysano wax loo yaqaano first project. in project-geena ugu horreeyay aynu abuurno. sidaynu u abuurno waxay leenahay Django bay leenahay. Django admin shaqaha noo qabto shaqadiisa ha ahaato in start uu abuuro project, in start uu noo soo kiciyo project. kadibna project-geena magac baynu la bixi doonaa. tusaale ahaan oo kale waxaan leeyahay waxaad ii abuurtaa mid loo yaqaano website. waxaan idhi waxaad ii samaysaa Django admin waxaan ka rabaa start project inuu ii abuuro project kaasoo leeyahay waxaa la yidhaahdaa website. intar haddaan idhaahdo oon gudihiisa soo galo hadda folderkeenii haddaan idinku yar celiyo halkan hoose ka eego folderkeena environmentiga dibadda aan uga soo noqdo. hadda laba fayl baa ii abuuran, mid waa environmentigii aynu abuurnay, kan kalena waa website-kii ama first project-geenii aynu hadda nidhi Django haynoo abuuro. way dhan tahay. mar hadday sidan tahay website-keena haddaan gudaha u galo waxaa ku jira fayl dibadda yaallo la yidhaahdo manage oon kan wax ka ran garayn doona ama ka run time-ka ku jiro markasta wax laga maamulo. sidoo kale halkan waxaa inoogu jira project-gii folder kale inoogu jiro isagana ka kooban faylal kaloo tusaale ahaan URL iyo setting waxyaabo sidaasa aynu gudaha ku arki doono. aan dib iskaga noqdo, marna folderka ma isticmaalayo, halkan aan iska isticmaali doonaa. si aan u galo folderka website la yidhaahdo cd baan odhan doonaa. kadibna waxaan odhan doonaa waxaad geysaa website. halkan waxaynu joognaa markii dhaweyd waxaan joognay Django oo ahaa folderkii desktop-ka aynu kusoo abuuranay. hadda waxaan leeyahay folderkan gudaha aan ka abuurtay ee samaystay project-gayga la yidhaahdo website gudihiisa ii geli waan ku jiraa. mar haddaynu gudihiisa ku jirno si aynu faylkeena u soo kicinno waxaynu isticmaalnaa command kaloo loo yaqaano inaynu idhaahno horta manage waxaan u baahannahay in aan idhaahdo py baan odhan karaa ama python baan qori karaa. py waan qori karaa keliya, sidoo kale python dhamaystiran waan qori karaa. python baan idhaahdo kadibna aan idhaahdo manage waxaad ii maamushaa .py faylka loo yaqaanaa macnihii hay sameeyo run server, mid soo toosa ha ahaado, mid kacsan oo shaqaynaya ha ahaado. wixii gu yidhi halkan erar yar baa ku hayso ilaa 18 fayl oo wax ka qaldan yihiin ayaa kuugu jira. waxba ugama baahni baan leeyahay ee waxaan eegi doonaa halkan linkiga yaree ku qoran 127 control iyo click baan odhan doonaa. halkan waxay nooga soo baxday Django-dii taasay inoo sheegaysaa the install works successfully, congratulations. macnihii Django inaad computerkaaga ku shubato waad ku guulaysatay ood project-gaaga ugu horreeyay abuurato. halkan haddaynu soo gaarnay waxaynu joognaa guul weyn. waxaynu abuuranay in gudaha computerkeena aynu awood ugu yeelano inaynu ku shuban karno Django.
aynu idyar xasuusiye waxaanu sameynay stepta koowaad oo ahayd in aynu folder samaysano in folder desktopkeena aynu ka samaysano kadibna folderkeena gudihiisa soo galnay inagoo isticmaalna maxay terminal terminalka gudihiisa markaan soo galnay waxaan nidhi hadda waxaan u baahannahay inaanu sameyno install inaynu gudaha computerkeena ku shubano waxa loo yaqaano virtual maxay environment oo ahaa virtual env si aynu ugu shubno waxaynu qornay pip baynu qornay kadibna waxaan nidhi install waxaad noogu shubtaa waxa loo yaqaano virtual env markii installationkii laynoo dhamaystiray waxaan nidhi waxaan u baahannahay inaanu abuurano environmentigaygi ugu horreeyey inaanu abuurano ayaynu abuurnay creating first environment si aynu u abuurano waxaan nidhi waxaan u baahannahay virtual environment virtual env kadibna environmentigan waxaanu la baxnay r oo u taagneyd recorded env tusaalaha saasaan abuurnay recorded environment environmentigeeni baa laynoo abuuray kadibna hadda waxaan u baahannahay baan nidhi inaanu sameyno activate in environmentigeena aynu ka dhigno mid active oo shaqeynaya si aynu uga dhigno waxaan nidhi waxaynu u yeedhnay faylka magacaynu la baxnay oo ahaa renv kadibna slash bay nidhi kadibna waxaan u baahannahay scriptska faylasha gudaha ku jira kadibna waxa u baahannahay bay nidhi in naloo sameeyo maxay activate intaa markaynu qabanay waxa active laynooga dhigay environmentigeeni ayaa hadda active laynooga dhigay kadibna waxaan nidhi waxaan u baahannahay hadda inaynu installation ku sameyno Django si aynu Django u install garaysanana waxaanu qornay command la yidhaahdo pip kadibna waxaan nidhi install waxaad noogu shubtaa maxay Django ayaa gudaha computerkeena laynoogu shubay si aynu u ogaano waxa inoogu jiro gudaha iyada waxaynu qornay command kaloo loo yaqaano pip freeze wuxuuna inoo sheegay in Django gudaha computerkeena inoogu jiro intaa markaan soo barnay waxaanu raacinay in iyadana command kale aan u baahannahay oo ah inaanu samaysano first project in projectgeeni ugu horreeyey aynu abuurano aynu iyadana bilownay waxaanu soo qornay command kale oo sheegaya si aynu u abuurno projectgeena ugu horreeya waxaan nidhi waxaan u baahannahay Django admin baan u baahannahay kadibna wuxuu noo qaban doonaa bay nidhi in uu noo sameeyo start wuxuu noo bilaabi doonaa project kadibna projectgeena magaca baynu la baxnay tusaale ahaan oo kale website bay nidhi soo saamayn mar haddaynu saa sameynay hadda waxaan leenahay waxaan u baahannahay in aanu tagno in aynu tagno bay nidhi maxay to website in websiteka laynoo sameeyey in gudihiisa aynu galno kadibna cd waxaan nidhi waxaan dhegeysaa maxay website websiteka gudihiisa hadda markaan galnay waxaan nidhi waxaan u baahannahay inaynu sameyno running server in serverkeena aynu soo kicino in toosino si aynu soo toosino waxaan nidhi py baynu isticmaali karnaa ama python baynu isticmaali karnaa kadibna manage waxaan nidhi faylka loo yaqaano manage.py ha noo sameeyo maxay run server ha noo toosiyo hadda shaqadeenu halkaasay maraysaa run server markaan nidhi shaqaday noo soo baxday waxay ahayd in address layna siiyo 127 kadibna linkigii aynu isticmaalnay sidoo kale halkan haddaynu mar labaad ka isticmaalno linkigan isticmaalno wax kale inooga sheegayay waxaan isticmaali karnaa local host wax loo yaqaano kadibna waxaan leeyahay local hostigaygu hayo laba dhibcood baan leeyahay 8000 intaa haddaynu isticmaalno iyaduna intii oo kale ay iyaduna inoo soo saaraysaa local host 8000 haddaynu isticmaalno iyaduna isla shaqadii aynu qabanay oo kale ay inoo soo saaraysaa intan commandiskan aynu kaliya isticmaalnay hadda waxaan isticmaali doonaa si aan Visual Code ugu furo ama Visual Studio Code si aynu ugu furno meesha waxaanu isticmaali doonaa iyadana command kaloo loo yaqaano code kadibna dot bayn raacin doonaa waxa meesha inoogu furmi doonaa Visual Studio Codekeeni aan idin yar xasuusiye si aan u istaajiyo si aynu tusaale ahaan u sameyno stop serverka shaqeynaya si aynu u istaajino waxaan isticmaali karnaa control+c ayaan isla taaban doonaa kadibna serverkeenu wuu istaagi doonaa
okay way kadibna waxaan oran doonaa Visual Studio Code meesha igu fur code baan qoray meesha waa la furi doonaa gudihiisa ayaynu galnaa okay hadda gudihii ayaynu ku jirnaa projectkeena first projectkeena okay projectkeena waxaan soo baxnay maxay website baynu la soo baxnay okay way projectkeena wuxuu ka kooban yahay halkan sare waxa inoo yaala file loo yaqaano manage.py waxaana nidhi waa kan wax ka ran karayno ama running time-ku ku jiro barnaamijka soo kicinaya weeye okay ama markasta aynu codsanayno leenahay py.manage.py in markasta dalbanayno weeye okay isaga waxba ka bedeli maayo koodkiisa iyo hawlihiisana taaban maayo waan daynayaa website-kayga gudihiisa haddaan galo wuxuu ka kooban yahay nidhi faylal file loo yaqaano setting oo isagu inoo haya wixii setting-ka ama meeshan wax ka bedeli doono noqon doona URL-kuna wuxuu inoo hayaa in page-keena hadhow toolo isugu keen tilmaamo sidaynu page uga baxayno page kale aynu u booqanayno shaqadaasi ayuu inaga caawiyaa okay way hadda shaqadeena halkan markay marayso waxaan codsan doonaa bal serverkayga ayaan dib u soo kicin okay way horta errorskan si aan iskaga saaro aan isticmaalo command yar halkan ku qoran oo ah python manage.py migrate macnaheedu waxaad samaysaa xogtan update gareey buu leeyahay isagana py aan isticmaalo kadibna aan idhaahdo manage.py waxaad ii samaysaa migrate ii samee xogtan iga bedel okay kadibna errorkii buu naga saari doonaa wada okay bay noqon doontaa kadibna waxaan oran doonaa python waxaan oran doonaa manage waxaad ii samaysaa adoo wax maamulaya faylkaagaasi hay sameeyo macnaheedu maxay run serverka mar labaad hay soo toosiyo okay serverkeena ha laynoo soo toosiyo ayay leenahay intan hadda haddaan idhaahdo waxaa laynoo odhan doonaa serverkeeni waa laynoo shaqayn doonaa errorkii 18kii line ee laynagu lahaa waxba ka qaldanaa way naga baxeen okay halkan haddaynu eegnaa still wuu inoo shaqaynaya local hostigeena waxaan idhi haddaba shaqaa jirto local hostiga halkan marka joogo waxaan raacin karaa inaan idhaahdo / kadibna admin baan u baahanay baan idhi waayo waxaan idhi wuxuu leeyahay qayb loo yaqaano admin panel wuxuu iga rabaa username iyo password username iyo password ayuu inaga rabaa wax username iyo password aynu soo samaysanayna ma jira okay way si aan qaybtan admin panelka ama dijaanka administrationka loo yaqaano ugu sameeyo password iyo username aan ku isticmaalo waxaan u baahanahay in gudaha projectkayga soo galo okay way halkan node-kan inoo yar node garaya okay way waxaan isticmaalay nidhi si removing ama migrating si aynu sameyno okay migrating si aynu sameyno update nu sameyno waxaan nidhi py kadibna waxaan nidhi manage.py macnaheedu ha noo sameeyo maxay migrate xogtii ha noo update garayo migrate ha noo sameeyo okay hadda waxaynu gudbinaa inaynu sameyno creating inaynu sameyno wax loo yaqaano maxay super user okay inaynu samaysano super user aynu ku isticmaalo qaybta arrinka ayaynu u gudbi doonaa okay super user si aan u isticmaalo waxaan isticmaali doonaa command loo yaqaano inaan idhaahdo py oo ahayd python kadibna manage.py faylkii la odhan jiray inuu inoo sameeyo create inuu inoo sameeyo super user okay intan ayaynu weydiin doonaa waxaan odhan doonaa py oo python manage faylkaaga loo yaqaano .py macnaheedu awood ha noogu yeesho inuu noo samayn karayo create super user in user na loo sameeyo awood leh okay control sin nidhaahno si aynu break ku sameyno koodhkeena maadaama uu rangaraysan yahay intii horena iska masaxo clear aan iska idhaahdo kadibna halkan sare aan kasoo bilowdo okay py aan idhaahdo kadibna manage.py baan leeyahay waxaad ii samaysaa okay waxaad ii samaysaa baan leeyahay shaqadaada ii qabanaysaa waxay noqonaysaa inaad samayso create waxaad ii abuuri doontaa super user in user fiican aad ii abuurtay awood leh okay magac maxaad uga dhiganaysaa buu igu yidhi kadibna admin baan doortay tusaalaha okay email bii weydiiyey emailka hadda waan iska dhaafi laakiin hadhow toole inaan isticmaalno ayaan doorbidaya okay
sidoo kale passwordkayga isagana admin baan ka dhigtay laakiin sida shuruudda passwordada waxay tahay in 8 ay noqdaan dhowr shay igu soo celiya waxaan nidhi Django horta first-iga wuxuu saaraa ama waxyaabaha awoodda saaro waxaa ka mid ah security-gu ilaaliya marka wuxuuna leeyahay passwordkiina iyo username-kiina waa isku mid sababtuna wax kale maaha labadaba admin ayaan isticmaalaa adminka halkan sare aynu ku qornay umaan password ahaana u isticmaalay okay sidoo kale 8 ma gaadho buu igu leeyahay marka way baan leeyahay waan ku qanacsanahay oo yes u taagan kadibna waan ogolaanay okay kadibna aan iraahdo py waxaad noo samaysaa manage.py macnaheedu okay in mar labaad serverkeeni aan kiciyo maadaama aynu samaysanay username iyo password وينoo shaqeynaya kadibna halkeena aan galno kadib aan iraahdo waxaan u baahanahay admin baanu ka dhiganay login bay leenahay gudahayna gali okay iska hubi lagu leeyahay okay kadibna admin okay admin bay niri waynu ku guuleysanay in gudaheena soo galno halkan waxay noogu qoran username-keena ku jira in la yiraahdo admin okay marka super user ku waxyaabaha awood u leeyahay waxa kamid ah in users kale isagu uu awood u leeyahay inuu create gareeyo tusaale ahaan oo kale aan hal user create gareeyo aan iraahdo halkan okay kadibna halka user-kayga magacaan ula baxo tusaale ahaan oo kale user1 ayaan ula baxay password yar baan siin doonaayo passwordkiisa waxaan oran doonaa tusaale ahaan Somali afartii xaraf igama ogolo gudaha markaan joogo marka Somali 1 2 3 ayaan iri okay sidoo kale Somali baan iri 1 2 3 okay passwordadeedu isku mid bay noqon doonaan waanan hubiyay marka hore aan soo sameeyay kadibna confirmation baan sameeyay si aan u hubino okay passwordadeeni mar haddaynu hubinay hadda waxaan eegi doonaa in statuskeena ama sidoo shaqeynayo aan iraahno active hanoo ahaado okay statuskeyga saan ugu shaqeysiyo halka waxaan ka sheegi karaa inaan iraahdo halkan ma staff ma shaqaala mise waa super user marka waxaan leenahay waxa weeye staff shaqaale weeye okay shaqaaluhu waxa awooda ma laha okay kadibna save ay leenahay sidaasi ayuu noogu dhanyahay okay si aynu uga shaqeysiino waxaan odhanaynaa markaa logout nade okay userkan naga bixi kadibna dib baynu soo geli doonaayo login baynu odhanay okay si aynu isticmaalo waxaan leenahay magaceena la soo baxnay wuxuu ahaa user1 passwordkiisuna muxuu ahaa Somali 1 2 3 okay login ayay leenahay okay wuu soo geliyay gudihii halka waxaynu ku jirnaa akoonkan ku jirnaa waxa loo yaqaanaa user1 sidoo kale wuxuu leeyahay awood u leeyahay inaad wax aragtid ayuu halkan iga siiyay okay kaasina halkaas inoo ku dhamaa okay super user-ki halkaas inoo ku dhan yahay hadda waxaan samaysan doonaa inaan idhaahno first app ayaan u baahanahay ama application-kaygii ugu horeeyay waxaan nidhi Django markaan joogno file kasta aynu u baahanahay ama wax kasta aynu soo kordhisanayna tusaale ahaan oo kale waxaan nidhi website-keena oo project-keena laakiin si aynu file-ku website samayno inaynu website-ii commercial samayno waxyaabaha inaynu samayno waxaan u baahanahay inaynu samayno wax loo yaqaano application okay control c aan iraahdo kadibna clear baan leeyahay igama sax koodka kadibna aan iraahdo hadda waxaan u baahanahay in Django admin-kii ku noqon doonaa kadibna waxaan oran doonaa waxaad ii samaysaa start waxaad ii abuurtaa markii hore project baan nidhi hadda waxaan oran doonaa application iyo abuur application-kaygana tusaale ahaan news baan ula baxaya Django admin baan nidhi kadibna start application baan nidhi application iyo abuur application-kaygana waxaad igu bixisaa news hadda koodkayga haddaan eego halkii sare maxaa kusoo biiray news loo yaqaano ayaa kusoo biiray hadda waxaan u baahanahay in newskaygu shaqada uu ii qabto si aynu u abuurno first app waxaan nidhi Django admin baan u baahanahay kadibna start wuxuu noo abuurayaa baan nidhi application kadibna application-keena waxaan ula baxnay in la yiraahdo news hadda mar hadday sidan tahay waxaynu eegi doonaa
Django wuxuu ku shaqayn jiray 4 button oo la oran jiray 3 button oo la oran jiray inuu isticmaalo modal view iyo template. Okay. Modal view iyo template ay Django ku shaqaysaa baan haddii newska la gudihiisa waxaanu ka arkaynaa file loo yaqaano modal iyo file loo yaqaano view. Waxay naga maqan file loo yaqaano template. Templates waxaan nidhi waa HTML files oo kuwa wax inoo view gareeya ama waxayna tusa wixii muuqaala ka aragno. Modalskuna waxaan nidhi waxay la xidhiidhaan la shaqeeyaan waa databases. Okay. Viewguna waxaan nidhi waa functionska iyo codeska aynu qoranayno ee Python codeka waxa loo yaqaanaa view. Okay. Mar hadday sidan tahay hadda waxaan u baahanahay inaan template-kayga abuuro. Template-kayga si aan u abuuro waxaan odhan doonaa calaamadan hore dooran doonaa tan koowaad waxay samaysaa file tan labaad waxay samaysaa folder. Folder baan abuuran doonaa. Folderkaygana waxaan ula bixi doonaa in la yiraahdo templates. Kadibna gudaha folderkayga waxaan doorbidayaa in folder kale aan ku sii qorxisto oo niraahdo tusaale ahaan kan gudihiisa waxaan ula baxay blog oo kale. Waxaan samaystay folder loo yaqaano templates gudihiisa waxaan ku sii abuurnay folder kale oo loo yaqaano blog. Blog gudihiisa hadda waxaan ku abuuri doonaa file HTML kaas oo ula bixi doono tusaale ahaan kale index.html maadaama yahay faylkii ugu horreeyay ee HTML aynu abuurnay. Okay. Aan xasuusiye haddii halkan aynu galno gudaha project-geena aynu ku guda jirnay kadibna aan niraahno waxaan u baahanahay website gudihiisa inaan galno kadibna news baynu abuurnay application la yiraahdo gudihiisa aynu galno kadibna folder loo yaqaano templates baynu abuurnay gudihiisa aynu galno folder blog la yiraahdo inoogu jira blog gudihiisa waxa inoogu jira file loo yaqaano index.html. Shaqadaynu qabanay kaliya waa intaa. Okay. HTML saan u qorto HTML5 baan iska isticmaal doonaa snippetska. Okay. Kadibna wixii code isiin doonaa ee HTML loo isticmaalo. Okay. Halkan waxaan ku qoran doonaa tusaale ahaan markaa h1 yar on leeyahay hello Django generation. Okay. h1 yar baan qortay aan ku qoray hello Django generation. Okay. Hadda markay sidan tahay waxaan doonayaa in halkii faylka sidan inaga soo gaaray markii dhaweytoole eego halka faylka sidan inaga soo gaaray in haddaynu soo gaadho hello Django generation baynu u baahanahay. Si aynu shaqadan u sameyno aynu niraahno waxaan u baahanahay in view-gayga iyo model-kayga aynu isticmaalno. Template-ka waa iskaga xidhi doonaa news baan ku noqon doonaa news hadda waxaan gudihiisa ku abuuran doonaa hal file oo kale kadibna waxaan ula bixi doonaa urls wuxuuna ii hayn doonaa url-ada kadibna .py baan nidhi faylkan waxaan doonayaa inuu la shaqeeyo fayl kale website-ka ku guda jira oo loo yaqaano isagana isla url. Waxaan rabaa labadan fayl in ay wada shaqeeyaan ama wada shaqeyn ka dhaxayso. Kadibna keenan hore website-ka inoogu jira aan hore u abuurinay baan gudihiisa tagi doonaa code badan kuma qorna waxa ka qoran codekiisu ka bilaabma inta from path-ka kadibna intaan aan oranay copy. Okay. Intaan aan copysan kan kalena isla code-kii waan dhigay labada url isla code ayaan dhigay hadda. Okay. Marka intan waan iska masixi doonaa hadda gudaha ku jirta maadaama doonayay inaan bedelo. Sidana ku daysan waxba ma soo kordhin. Okay. Website-ka hadda shaqo kale ay taalo website-ka gudihiisa aan geli doonaa kadibna waxaan tagi doonaa qaybta loo yaqaano settingska. Settingska markaan galo iyadana hoos baynu u soconay. Waxaan tagi doonaa qayb ay ku qoran tahay installed apps ama application-ada ku jira gudaha Django-deeda. Okay. Waxaanu sheegi doonaa marka application-kan sameynay inagoo calaamadaha ka horreysiinayna application-keena waxaan u bixinay news. Aan xasuusiyo halkan markii dhaweyd abuurinay app-ka waxaan u bixinay app la yiraahdo news banner kadibna halkan aynu magaciisa ku sheegnay. Okay. macnaheedu waxay tahay application-keena waynu diiwaan gelino gudaha project-geena waynu ka diiwaan gelinay oo waa la garanayaa hadda laga bilaabo. Okay. url-keenina waynu sameynay laakiin wixii code dambe waynu hadheen. Okay. View-deena aan tago view-da waxaan ka samaysanaa wixii functionisa ama codesa aynu u baahanahay. Si aynu Python u qorno function dhif baynu ka bilaabi jirnay kadibna maadaama ay tahay fariintii ugu horreysay tusaale ahaan oo kale hello world aan ula baxo. Okay. Hello world ayaan function-kayga ula baxay
kadibna waxaan leeyahay functionkaygan wuxuu sameynayaa request buu dirayaa codsi ayuu dirayaa functionku laba dhibcood baa ka dambeyn jiray kadibna waxaan leeyahay shaqadu qaban doona waxay tahay in return uu sameeyo wax soo celiyo kadibna render inuu sameeyo xog soo helo xogta uu soo heliyay wuxuu kasoo heli doonaa in requestigii ama codsigii uu sameeyey ayuu eegi doonaa kadibna codsiga wuxuu baari doonaa wax kasoo qaban doonaa meesha loo yaqaano folderka blog buu geli doonaa kadibna faylka html-ka gudihiisa ku dhex jira ee loo yaqaano index.html ayuu booqan doonaa waxaa yidhi functionkaygan wax kalama sameynaya rendering buu sameynaya horta waxaanuu soo celinayaa return buu sameynayaayo waxbuu soo celin doonaa waxaana uu ka keeni doonaa rendering buu sameyn doonaa kadibna codsi buu dirayaa codsiga waxa uu kasoo helayaana waxay tahay index.html wixii ku jira inuu noo keeno ay shaqadiisu tahay kan hadda intaasan ku save garaysan kadibna waxaan geli doonaa qaybtan loo yaqaano urlska urlka wuxuu sheegaa baan idhi baaskayga ama wadadan maraya halkan haddaan idhaahdo tusaale ahaan oo kale applicationkeena news baan idhi news slash haddaan idhaahno macnaheedu waxay tahay halkan markaan local hosti soo galno waxaanu sii raacin doonaa waxaan sii raacin doonaa slash maxay news bayn dee sii raacinaynaa marka habkaa mar rabi waxaan rabaa isla local hostiga markaa fariintu halkan soo gaadho inay noo soo baxdo hello Django marka waxaan leeyahay meel maran weeye hadda coma baan odhan doonaa kadibna functionkayga magacaan usoo bixiyey ayaanu yeedhi doonaa functionkayga waxaan usoo bixiyey hello world hello world markaan u yeedhay eeg halka waxaa laysoo import gareeyey sheekh isla hello world mar haddii hello world laynoo soo import gareeyey waxaan leenahay waxaan u baahanay name aan ku garanno namekeedana waxaan ula bixi doonaa tusaale ahaan home oo kale hadda shaqadeydani halka saasay ku dhan tahay aan idhaahdo waxaan u baahanahay url-kii kale url-ka hadda wuxuu inoo kala sheegayaa kan wuxuuna leeyahay url newskii baan kasoo baxay haddana waxaan ku jiraa url-kii u lahaa website-ku isaga gudihiisa laftiisaan iman doonaa kadibna waxaan odhan doonaa shaqadadii bedelaysaa waxay noqonaysaa halkan hore maadaameynu meel maran ka dhiganay meel maran noo ahow mar hadday meel maran noo tahay waxay leenahay hadda waxaan rabnaa inaad shaqo noo qabato halkan baaska dabadiisa coma baan odhan doonaa kadibna waxaan odhan doonaa faylkan include buu sameynayaa fayl kale ama cid kale ayaa la shaqeynaysaa cidda la shaqeynaysaa halkan ku sheegi doonaayo include waxaan odhan doonaa waxaa la shaqeynaya faylkeena faylka loo yaqaano waxaa la shaqeyn doonaa faylka loo yaqaano news kadibna faylkiisa loosii yaqaano urls labadan fayl ayaa wada shaqeynaya ayaynu u sheegnay intan markaynu qabanay safe bayn leenahay koodhkeenna saasaynu ku safe garaysan aynu eegno saynu u eegno halka waxaan leenahay py bayn leenahay kadibna waxaan leenahay manage .py wax kale waxaa noo sameynay run server bal noo soo toosi serverkii mar labaad serverkeennii ayaa laynoo soo kicin doonaa wax errorna laynooma hayo local hostigeenna ayaan dib u refresh garayn markaa waxay noo soo baxday fariin wacan bay noo soo baxday waxay noo soo baxday hello Django generation stepskii haddaan dib ugu celiyo waxaan samaystay marka hore waxaan samaysanay create waxaynu abuurnay folder baynu abuurnay folderkeena waxaan ula baxnay template templateka gudihiisa waxaan kusii abuuray folder kale oo loo yaqaano blog kadibna waxaynu abuurnay fayl loo yaqaano index.html indexkeennii fariin yar baynu ku qorannay oo h1 ahayd oo fariin inoo soo saarisay kadibna waxaynu u gudubnay waxaynu abuurnay fayl kaloo loo yaqaano view waxaynu abuurnay baan nidhi fayl kaloo isagana loo yaqaano urls.py kaasaynu ku abuurnay in news baynu ku samaynay newskuna wuxuu ahaa applicationkeennii aynu samaysanay gudihiisa ayaynu ku samaynay isagana waxaan nidhi copy code waxaad inooga soo koobiyeysaa codeka ku jira maxay tahay halkee from website iyo aado faylka ku jira website.url-ka waxaad nooga soo qaadaa inoo soo koobi gare kadibna kenny inoogu koobi gare markay soo koobi garaynay waxaynu tagnay qaybta loo yaqaano viewdeena
in viewgeena waxaynu sameynay function baynu abuuranay. Okay, creating function baynu nidhi function noo abuur. Okay, soo saamahay. Okay, way function see noo abuurano stepskeena marna wax kala ma ahayne waxaan nidhi diff waxaan u baahnay in function loo sameeyo. Functionkeena waxaan noo baxnay maxay hello. Okay, hello world baynu noo baxnay. Okay, kadibna waxaan nidhi functionkeena wuxuu sameynayaa request buu diraya codsi. Okay, way codsiga markuu diro waxa uu sameyn doonaa baynu nidhi wax loo yaqaano in return uu wax soo celiyo. Okay, kadibna render buu sameyn doonaa xog buu soo render gareyn doonaa oo uu soo akhriyo. xogtan wuxuu inoo mari doonaa baynu nidhi requestigu inoo diri doonaa horta codsigeennii ayuu eegi. Okay, codsigeennii markuu eego kadibna wuxuu geli doonaa qaybta loo yaqaano blog oo ahaa folderkeena kadibna wuxuu kasii dhex geli doonaa faylka loo yaqaano index.html. intaasi ayaynu nidhi kadibna waxaan nidhi mar haddaynu functionkii abuuranay waxaan tegi doonaa faylkeena loo yaqaano. Okay, waxaan tegi doonaa qaybteena tusaale ahaan newskeenu ku guda jirnay kadibna waxaan kasii geli doonaa faylkeeda loo yaqaano url kadibna urls kadibna .py kadibna waxaan ku qori doonaa aynu halkii baaskiisa raacin doonaa maadaama baas soo import garaysanay baaskeena waxay noogu jiri doonaa inaynu nidhaahno waxaad noogu yeedhaa functionka iyaganu soo samaysanay. functionkeena waxaan la soo baxnay hello world kadibna name baynu u bixin doonaa namekeeda tusaale ahaan oo kale waxaan odhan doonaa home baa la yidhaahdaa. intaasi ayaynu kusoo darnay. Okay, way kadibna waxaan u baahanay halkaa markay tahay inaanu tagno qaybta loo yaqaano. Okay, qaybta loo yaqaano website-ka url skiisa .py faylka saasa. Okay, kadibna isagana waxaan nidhi waxaanu kusoo darsan doonaa halkay path ku qornayd ee sare waxaynu raacin doonaa comma baynu odhan doonaa kadibna include baynu odhanay. Okay, kadibna pathkiisaynu gudaha u geli doonaa baaskiisa waxaanu ka dhigan doonaa laba dhibcood oo madhan kadibna waxaan odhan doonaa faylkan include wuxuu la sameynaya oo la shaqeynayaa newska marka la galo qaybta newska faylka loo yaqaano urls.py. kadibna shaqadeenu saasay ku dhamay. Okay, way aynu xasuusiyo iyadana waxaan soo ilaaway baan filayaa settingka gudihiisa isagana waxaan sameynay. Okay, settingkan tagnay kadibna waxaan soo marnay qaybta loo yaqaano maxay installing appska kadibna waxaanu diiwaan gelinay appkeena oo la yiraahdo maxay news. Okay, intaasi ay shaqadeenu ku soo dhamay. intan waa habka aynu hadda soo marnay. Okay, fariinteena inoo soo baxdayna maxay ahayd hello Django generation. Okay, way waan bedeli karaa oo waxaan ka dhigi karaa shay kale tusaale ahaan raacin karaa. Okay, make it paragraph yar aan raaciyo loremna aan qoro. Okay, lorem. Okay, way lorem ma qoray f5 baan nidhi maxay noo soo baxay qoraal kale ayay noo soo baxay. Okay, marka html plain kaliya ayaan isticmaalay. Okay, hadda shaqadeenu qabanay intaasi ayay ahayd. Okay, way waxaan raacin doonaa hal shay oo kale iska dheeraada fiidiyogu waqti baynu gelin insha Allah. Okay, way aan raaciyo iyadana sidee baan u samaysan karnaa variables. Okay, way create ma leeyahay waxaan u baahanahay inaanu samaysano maxay variables. in waliba Django sheekh markaan Django joogno variablada sida noola dhaqmi lahayn baynu u baahanay. way si aan variablada ula dhaqmo aan iska galo code-kayga control c baan oran jiray si shaqadu u joogto kadibna clear baan oran jiray hadda halka wax ugu baahnay. Okay, way waxaan geli doonaa gudaha project-geena waxaan tagi doonaa qaybta loo yaqaano views.py. Okay, way kana ku jiraan ku xasuusin mar kale waxa way qaybtii newska. Okay, way waan soo galay hadda halkan gudaha waxaan oran doonaa si aan u samaysto variables waxaan u baahanahay in isticmaalo dictionary. Okay, dictionary si aan u isticmaalo context baan isticmaal doonaa kadibna waxaan oran doonaa context-geenu wuxuu la mid yahay tusaale ahaan oo kale aan isticmaal variable yar oo i haya name magaca. Okay, kadibna name waxaan leeyahay laba dhibcood kadibna halkan waxaan uga dhiibi doonaa fariinta ay noqon doonto. Okay, name kan iraahdo tusaale ahaan oo kale Muhammad. Okay, Muhammad baan nidhi. Okay, way si aan u helay Muhammadna halkan dambaan ka codsan doonaayo fariinteena cid inoo haysto waxa la yiraahdaa context. context-iguna wax kale ma ahayn dictionary-geenu hayo
halkan dambe waxaan odhan doonaa waxaad noo raacaysaa context wixii dictionary-ga noogu jira macnihii inaad noo soo hesho noo raacay okay waynu save garaysan faylkeeni html-ka ahaa baan tegi doonaa kadibna waxaan odhan doonaa okay kadibna waxaan raacin doonaa okay halkan aan iska idhaahdo hr oo ahayd horizontal line kadibna aan idhaahdo h1 baan u baahanahay h1 tani waxay ahayn doontaa labadan calaamadood baan qori doonaa kadibna labadoodii kala raacin doonaa okay aan idin xasuusiyo variable-kana magaciisa waxaynu ku aqoonsanaa kan ugu horeeya ayaa variable-ka magaciisiiya kanna waa wixii aynu ku shubanay okay kan waa variable name kana waa value-gii aan ku shubay marka variable-kayga waxaa la yidhahdaa name value-ga ku shubayna waxaa la yidhahdaa maxamed okay marka si aan variable-ka ugu yeedho labadan calaamadood dhexdooda waxaan uga yeedhi doonaa name save haddaan idhaahdo waa kan refresh haddaynu idhaahno si aynu refresh u idhaahno terminalkeena dib aanu yar kiciyo okay run server baan leeyahay okay halkan aan refresh sameeyo okay halkan maxay noogu soo baxay maxamed ayay noo soo baxay okay congratulations shaqooyin baan qabanay okay waxaan filayaa idinkuna inaad intaa iyo in ka badanba qaban doontaan okay hadda hal variable baan qoray soo saamahayn hadda hal variable ayaynu qornay okay ka warrama haddaynu samayno variable kale oo isaguna inoo haya qofka tusaale ahaan oo kale telefonkiisa ama aan idhaahdo id oo kale id-ga isagana si aynu u samayno 2002 baan isagana id baan u dhiibay save baan leeyahay okay isagana html-keenu may tegi doonaa waxaan odhan doonaa tusaale ahaan oo kale h3r oo inoo haysa id-gaanu yeedhi soo saamahayn variable-keenna id baynu soo bixinay save aan idhaahno kadibna code-keeni refresh aan ku samayno maxay noo soo baxay 2002 okay variable kale isagana waynu samayn karnaa oo isagana waynu raacin karnaa tusaale ahaan oo kale waxaan idhi waxaan u baahanahay okay variable-lada sidaas yar oo fudud ayaa loo samaysan karaa okay variable kale isagana waad raacin kartaa oo tusaale ahaan oo kale waxaad odhan kartaa waxaan u baahanahay variable yahayaa okay faculty okay variable inoo haya faculty-geena aan kadibna faculty-geena u dhiibno tusaale ahaan oo kale computer science okay computer science baan idhi kadibna html-keena nima doonaa markasta template-keena kadibna waxaan u sheegi doonaa cidday noo hayn doontaa iyadana faculty-geena okay h2 baan leeyahay kadibna waxay haysaa baan leeyahay iyaduna variable loo yaqaano faculty okay save baan leeyahay haddaan eego halkan refresh idhaahdo okay faculty thinking ftan capital ka dhignay waa laga yaabaa faculty saa ka dhigay marka soo magacaabiyey refresh haddaan idhaah maxay noo soo baxay computer science osama okay waynu eegi doonaa waxyaabaha kale inoo hadhay insha allah sida in loo yaqaano ama tagska loo yaqaano if iyo for insha allah iyagana waynu arki doonaa hadda intaasaynu u baahan nahay way isku soo dayi doontaa dhammaanteed shaqo wacan deh